safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa xafiiska safaaradda ku soo dhaweeyay labada abwaan ee Sooraan iyo Jawaan oo bilihii u dambeeyay ku sugnaa waddanka Djibouti waxayna labada abwaan ee Sooraan iyo Jawaan soo booqdeen qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti ugu horreyntii safiirka Somaliland ee waddanka Djibouti ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay intaas kadib waxa saxaafadda la hadlay Sooraan Ismaaciil Sugulle iyo Kabtan Ciise Jawaan oo kamid ah qosliyaasha waaweyn ee reer Somaliland oo bilihii u dambeeyay ku sugnaa waddanka Djibouti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Runtii maanta waxaan noo yimid labada abwaan Sooraan iyo Jawaan وبريهم بنا نشوف جمهورية جيبوتي وحنا يكسر دواد سفارة الصومال جيبوتي رنتي قاعمون فرمدن كسر دويننا وأنا كفر أحسن أنا ما عندنا صوب وغطان رنتي أنا وحينوت هاي فرحت لبدا أبوان وما يمد سفارة ودل في هويو قطار جمهورية جيبوتي أنا قوضدن هذين نقطة ستاف كوردن وحنا لنا قاعمون فرن مرلواد مرتدحات شو دواد سفارة الرومركي ورسيلة هاي دي يمكن كسلة هاي واحد كله فوقيان marka meel kastana hadii sidan oo kale looga shaqeeyo wadanku wuxuu heli lahaa horumar iyo guul buu gaari lahaa insha Allah imkana uu gaari doona aad iyo aad safir waa ma soo shaqeysay iyo qaabka imka uu qabatay waxa weeye waa si aad hore uga sii maraysa hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah anaguna waan kugu hambalyeynaa miladal badan oo samayn doonta hadii Ilaahay ka dhigo safaaraddan aad baan u aragnay qabadkaaga inta aad qabatay safaaradda maanta waxaan joognaa safaaradda Somaliland magaalada Djibouti sida runtii anagu maan moodeen safaaraddu inay sidaan u qalabeysan tahay ama sidaan loo hagaajiyay ama sidaan ay u kala baxsan tahay ama sidaan inta leeg bay gaarsiisan tahay waan ku faraxnay saaka markii aanu nimi safiirka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa safiirka xogeenka aad baan ugu hambalyeynaa maanta waxaan joognaa Somaliland gudaheeda sida loo qalabeeyay qalabkii Somaliland oo dhan baa la wada keenay hadii ay tahay sawirada madaxweynayaasha hadii ay tahay dhulka taariikhiga sawirada ay tahay hadii ay tahay nidaamka iyo sida loo sameeyay hadii ay tahay xafiisyada soo dhaweynta hadii ay tahay calamada ku xidhan sida ugu laalaadaan iyo sida loo hagaajiyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti.